Sheekada Lionel Messi iyo Barcelona waa sheeko aan la ilaawi karin. Waxay ka bilaabatay heshiis yar oo warqad tiish ah lagu qoray, balse waxay ku dhamaatay halyey kubadda cagta dunida beddelay. Messi wuxuu Camp Nou ka dhigay masrax uu ku sameeyo mucjisooyin, isagoo Barcelona la gaaray guulo waaweyn iyo xusuuso taariikhi ah. Haddaba daawade, nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalkan si aan dib ugu milicsano safarkii cajiibka ahaa ee Lionel Messi. Hase yeeshee is-xasuusin, ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo. Mahadsanid. Aan usii gudagalno muuqaalkeena. Imaanshihiisii Camp Nou iyo heshiiskii cajiibka ahaa ee 2000. Messi wuxuu Barcelona ku soo biiray isagoo 13 jir ah bishii September 2000. Heshiiskii ugu horeeyay waxaa lagu saxiixay warqad yar oo nooca gacmaha lagu tirtirta ah, sababtoo ah agaasimihii Barcelona ee xilligaas, Carlos Richard, ayaa ka cabsi qabay inay kooxdu weydo hibada wiilkan yar. Safashadiisii ugu horeysay ee Barcelona, Lionel Messi ciyaartii ugu horeysay ee rasmi ah wuxuu saftay taariikhdu markay ahayd 16 Oktoobar 2004, isaga oo lagu soo bedelay Deco ciyaar ka dhan ahayd kooxda ay isku deegaanka yihiin ee Isbaanyool. Waxay ahayd bilowga xilli ciyaareedkii uu adduunka ku baran lahaa mucjisada cusub. Goolkiisii ugu horeeyay ee Barcelona, taariikhdu markay ahayd 1 May 2005, Messi wuxuu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee Barcelona isaga oo ka helay caawin cajiib ah xiddiga Ronaldinho ciyaar ka dhan ahayd kooxda Albacete. Goolkaas wuxuu ka dhigay Messi xilli ciyaareedkaas ciyaaryahankii ugu yaraa ee gool u dhaliya Barca tartanka La Liga. Goolashii uu u dhaliyay wadar ahaan, Messi waa goolalyaha ugu sareeya taariikhda Barcelona. Waxa uu u dhaliyay kooxda 672 gool oo rasmi ah, isagoo ka sarmaray rikoorkii Pele ee ahaa ciyaaryahanka goolasha ugu badan u dhaliya hal koox. Goolashii uu caawiyay wadar ahaan, Lionel Messi ma ahayn oo kaliya goolalye, balse wuxuu ahaa mashiinka ciyaarta dhisayay. Wuxuu sameeyay 305 caawin intii uu ku sugnaa garoonka Barcelona ee Camp Nou, isagoo noqday ciyaaryahanka ugu caawinta badan taariikhda kubadda cagta ee hal koox heerkeeda ugu sareeya. Koobabkii uu la qaaday, Messi wuxuu Barcelona kula guuleystay intii uu xirnaa maaliyadeeda wadar ahaan 35 koob oo kala ah 10 horyaal oo La Liga ah, 4 UEFA Champions League, 7 Copa del Rey, 8 Supercopa de Spain, 3 UEFA Super Cup iyo 3 FIFA Club World Cup. Xilli ciyaareedkii mucjisada lahaa sanadkii 2012, Messi wuxuu dhaliyay 91 gool hal sano gudaheed kooxda iyo qaranka, isagoo jabiyay rikoorkii Gerd Müller ee ahaa 85 gool. Rikoorkan ilaa hadda waa mid aan la taaban karin. Ku guuleysiga Ballon d'Or intii uu joogay Barcelona, Messi wuxuu ku guuleystay 6 ka mid ah 8 Ballon d'Or ee uu haysto: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 iyo 2019. Wuxuu ahaa laf-dhabarta guulaha kooxda ee xilliyadaas. Saddexleydii taariikhiga ahayd The Treble. Messi wuxuu kooxda ku hogaamiyay 2 jeer oo ay hal xilli ciyaareed ku guuleysteen 3 koob ee ugu waaweyn: La Liga, Copa del Rey iyo Champions League sanadihii 2008, 2009 iyo 2014, 2015. Rikoorka El Clasico. Lionel Messi waa goolalyaha ugu sareeya taariikhda kulanka weyn ee El Clasico, Barcelona vs Real Madrid, isagoo dhaliyay 26 gool. Waxaa ka mid ahaa goolashaas oo lagu xasuustaa saddexleydii uu ka dhaliyay isagoo 19 jir ah sanadkii 2007 kabtanimada kooxda. Kadib markii uu baxay Andres Iniesta sanadkii 2018, Messi ayaa loo magacaabay kabtanka koowaad ee Barcelona, isagoo kooxda ku hogaamiyay 2 koob oo horyaal ah intii uu xirnaa calaamadda kabtanimada. Sidoo kale wuxuu 6 jeer ku guuleystay abaalmarinta gool-dhalinta horyaalada Yurub ee Golden Shoes. Waxa uu kaloo noqday goolalyaha ugu sareeya horyaalka Spain ee La Liga 8 xilli ciyaareed. Isku xirka MSN, Messi, Suarez iyo Neymar. Messi wuxuu qayb ka ahaa mid ka mid ah weeraradii ugu cabsida badnaa taariikhda kubadda cagta intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2017. Saddexdaas ciyaaryahan waxay dhaliyeen boqolaal gool, iyagoo ku guuleystay Champions League 2015. kulamada uu u saftay wadar ahaan. Messi wuxuu Barcelona u saftay
778 kulan oo rasmi ah, taas oo ka dhigtay ciyaaryahanka ugu safashada badan taariikhda kooxda, isagoo ka sare maray halyeeyay kale ee Xavi Hernandez sagootintii murugada lahayd 2021. Taariikhdu markay ahayd 5 Agoosto 2021, Barcelona ayaa ku dhawaaqday in Messi uusan sii joogi karin kooxda sababo la xiriira dhaqaalaha iyo xeerarka La Liga. Messi ayaa ka tagay kooxda isaga oo ooynaya, taas oo soo afjartay 21 sano oo uu qayb ka ahaa qoyska Barcelona. Ugu dambeyn, waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii sheekada Lionel Messi iyo Barcelona. Waxay ahayd safar dahabi ah oo 21 sano soo socday, kana tagay xusuus aan la ilaabi karin. Inkasta oo uu kooxda ka tagay 2021, haddana magaca Messi wuxuu weligiis ku qornaan doonaa taariikhda Barcelona iyo qalbiyada taageerayaasha. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg waayihii quruxda badnaa ee Lionel Messi iyo Barcelona. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.